qiimaha ugu horeysiinaya shacbi badan baynu nahay deegaano badan baynu nahay oo xaggaana u xigto sanad iyo awdal xaggaana sanaa iyo soo marka fariinta ugu horeysa isla shirka way ka soo baxaysaa waxa weeye fariin midaysa shacbigeena kala deegaanka ee kala reeraha ee imaka ay ka muuqato kala qaybsanaanta badan waxaan ku rajo weynahay kuna kalsoonahay shirkani kasoo bixi doonto tala qaran oo bogsiisa dhammaan boogaha qarabku tagayo haddii alla haynaga u baahan tahay maanta dubucurasho ku salaysan cadaalad iyo midnimo iyo walaalnimo iyo inaan la kala lahayn qaranka oo loo siman yahay waxaan ugu ducaynayaa in ay ka soo baxaan wixii shacbigu ka filayo wixii dhammaan gobolku ka filayo mid shacbiga ka saara dhammaan waxyaabaha ay tabanayso talada qaran ee insha allahu dalka badbaadisaana inay ka soo baxdo. waxaan kaloo ku baraarujinayaa inuu yahay shir saameyn ku yeelan kara dalalka aynu jiiraanka nahay iyo wax alliya wixii af soomaali ku hadlaba inuu ku noqon karo shir saameyn weyn ku yeesha. aan ku talinayaa oo idii soo jeedinaya guud ahaan shirkan waxaa ka soo baxaya inuu noqdo wax qancin kara qofka somaliland ee halka ugu bariyaya degan iyo qofka somaliland ee halka ugu galbeedaysa degan inuu noqdo midhaha aynu soo saaraynaa wax qancin kara dadka oo ummaddu ay ku faraxdo oo ku naalooto inuu shirka ka soo baxay rajeynayna. waxaynu kaloo rajaynaynaa inay ka soo baxdo inaynu noqono kuwii dadka isu ururinayay ee ummadda midaynayay inaynu noqono aynanu noqon kuwa kala qoqobaya ee kala qaybinaya ee isku diraya ee iska horkeenaya. waxaynu rabnaa inuu ka soo baxo midhihii aynu gashanay ee halganka dhiiggii daatay raggii ku go-ay wixii la soo maray taariikhdii inaanay ku lumin habaa'an manhuura oo aanay dabayli qaadin ay noqoto mid dadka dhaqla. arrimo fara badan oo maanta inoo yaalla ayaa loo baahan yahay in si daah furan oon gabasho lahayn loo waajibo dadkeennana loo jeexo waddo dhibaatooyinkan fara badan ee inagu xeeran lagaga bixi karo. waynu ogsoonnahay maanta somaliland dhaqaalaheedu siduu yahay yuhuunta iyo wada noolaanshaha dadku siduu yahay waxa isu keenay waxa weeyaan arrimahaas inaynu ka tashano oo nafteennana wax u qabanno dadka aynu la noonahayna waxa aynu qabanaa noqdo wax giddi wada gaadha maaha wax yar oo inankaynagu kooban. waxaynu u baahanay maanta diiraddeenu inay ahaato mustaqbalka ee aanay noqonin shalayto. waa inay aanay inhogaamin shalayto daraato wixii dhacay laakiin maanta iyo beritiya saa dambe inaynu hogaamiyaan inaynu garanno xagga aynu ku soconno dariiqa inaynu jeexano aynu isu keenno ummadda reer somaliland oo